asxaabe waxaad ku soo dhawaataan qaybtii shanaad ee sheekadii halkudhigeedu ahaa dhimasho ayaan ka xigaa inaan dib kuu soo jeclaado. sheekadu waa qiso jecel oo dhab ah oo ku dhacday lamaana Soomaaliyeed. qisadani ayaa ah mid xambaarsan murugo iyo tiiraanyo xanuun badan. Ridwaan iyo Anisa waxay go'aansadeen inay u baxsadaan degmada Afgooye. waxayna kireysteen xaaji qamsiin. baabuurta magaalada ka baxda oo dhan waxaa loo dhigay waardiye. wadooyinka waardiyaha adag uu saarnaa waxay ahayd wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. wadadaasi oo loo yaqaano Ex Control. Ridwaan wuxuu ahaa nin taatiko badan. Anisa ayuu ku amray in ay xirato labis nin ah, surwaal iyo shaati si muuqaal ahaan ugu ekaato nin. Anisa waxay gaabisay timaha dhar nin ayay xiratay, sidoo kale jaakad ayay ka dulqaadatay shaatiga. uma eka markaanay gabar qofkii arkaa wuxuu moodaa in ay tahay nin. waxaa la soo gaaray isgoyska Ex Control. gaariga ay saarnaayeen ayaa la istaajiyay. ciidanka waxay ka waayeen gaariga gudihiisa wax u qaab ee gabar. sidii ayay ku baxsadeen labadooda. habeenimo ayay galeen degmada Afgooye. Anisa iyo Ridwaan weli waxaa ku taagan cabsi ah ama la idiin qabtaa oo la idiin xiraa. dhanka kale Anisa aabaheed wuxuu u tagay kitaab gaablow, sixiroolow ama faaliye. wuxuu ka codsaday in uu kitaabka u kala baxsho uuna sheego halka ay gabadhiisa ku sugan tahay. fadlan ha aaminin war sixirow, waa dembi iyo shirki. weligaana ha u dhowaanin, waa diilaawe, waana qof Ilaah ka furtay. sixiroolowgii wuxuu sheegay in gabadhiisa ay joogto caawa degmada Afgooye. Anisa aabaheed wuxuu soo kaxaystay habeenka wixii uu awooday ee ciidan ah iyo gawaarida dagaal
dagaalka oo fara badan. markii uu soo gaaray Afgooye isaga iyo ciidankiisa waxay isqabteen ciidan hore u joogay degmadaasi waxaana dhex maray isfaham waa labada dhinac. Anisa aabaheed habeenkii wuxuu rabay in wax kasta uu ku maquuniyo awoodda laakiin ciidankii oo goobta keensaday waxay noqdeen kuwa la dilo kuwa baxsad ah iyo kuwa la qabto. Anisa aabaheed habeenkii isaga oo caraysan ayuu ku laabtay magaalada Muqdisho waxaana la gudbooneed inuu la hadlo qolada ka talisa Afgooye si degan. markii uu waagu baryay Ridwaan wuxuu ka warhelay dagaal xalay ka dhacay degmada wuxuuna ogaaday in uu ahaa aabaha Anisa. wuu fikiray wuxuuna dareemay in meesha lagu ogaaday wuxuuna la kulmay Anisa wuxuuna u sheegay isagoo geeraaraya sida tan: duryaankii iyo madaafiicdii xalay dhacay duulaan buu ahaa aabaha soo qaaday. dulmigiisa waxaa ku baxay mooryaan aan darajadiisa aqoon. dantuu lahaa isagoo gaaray buu la laabtay jab iyo hooge. duulaan kale inuu soo wado aabaha daah igama saarnee durguf ma dhahnaa ma baxsanaa inta aan nala qaban. dharaartan deegaan kale ma u barakacnaa dulmi ma ka nabadgalnaa. markiiba Anisa way fahantay duluucda hadalka ileen qalbi isjecel sahal kuma kala haraane. cadaadis kasta waa kuwii u bareeraa. Anisa iyo Ridwaan waxay ku heshiiyeen in ay baxsadaan maadaama haddii halkan ay sii joogaan la qaban doono. magaalada Afgooye way isaga baxeen. talow xaggee aadeen? la soco qaybtii 6. samirka wowga iyo saxa la gaadhay haddii aan ku saanyaday noqo sawjadii aan rabay noqo sawjadii aan rabay jacaylkuna saliba sabab jacayliyo dareen igu siyaaday labtamaysa saara misku sugnaa labtamaysa saara misku sugnaa labtamaysa saara labaha weliba saabambay kalgacayl samaystaan ada samirku gaadhe Asal digo
samigii aan helay noqo samigii noqo samigii aan helay axdiguna sidii buu u saldhigay naftayde miya sayri karaa sabab jacayliyo dareen igu siyaadee labta maysa saara misku sugnaa labta maysa saara misku sugnaa labta maysa saara igalay wasabab jacayliyo dareen igu siyaadee nafta masasina masku sidina labta maysa saara nafta masasina masku sidina oy labta maysa sidina